kulankii baarlamaanada maamul goboleedyada dalka ka jira iyo kan dowladda federaalka Soomaaliya oo ku dhawaad muddo 4 maalin ka socday magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay gaar ahaan hulka baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya ee magaalada Baydhabo ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana laga soo saaray warmurtiyeed ka kooban dhowr qodob waxaana qodobada warmurtiyeedka saxaafadda u akhriyay gudoomiyaha baarlamaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna waa Allah mahadi haddii kulankeena afraad uu maanta aan joogno een gabagabadiisii marka insha Allah wixii ugu dambeeyay waxa waaye waa inaanu aqrino marka warmurtiyeedkii waxyaabihii lagu heshiiyay ee ka soo baxay kulankan afraad warmurtiyeed golaha afhayeenada golayaasha xeer dejinta Soomaaliya 26 ilaa 29 December 2017 Baydhabo golaha afhayeenada golayaasha xeer dejinta ayaa kulankoodii afraad ku yeeshay magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed 26 ilaa 29 December 2017 waxaana ka soo qayb galay golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka Mudane Mahad Cabdalla Cawad golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Mudane Axmed Cali Xaashi gudoomiye ku-xigeenka koowaad golaha wakiilada dowlad goboleedka Puntland Mudane Cabdulxamiid Sheekh Cabdisalaan Ciise golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Jubbaland Mudane Aadan Khaliif Xaaji Yuusuf golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleed Galmudug Mudane Cali Gacal Casir gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Galmudug Mudane Maxamed Axmed Maalin golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Cabdiqaadir Shariif Sheekhuna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Nuur Maxamed Macallin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Mudane Aweys Xuseen Macallin golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle gudoomiyaha golaha wakiilada dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Sheekh Cusmaan Barre Maxamed qodobka koowaad ujeedada kulanka afraad wuxuu ahaa sii xoojinta iyo iskaashiga khibrad isweydaarsiga qorsheynta barnaamijyada tayo kordhinta hay'adaha xeer dejinta qiimeynta mashruuca taakulaynta hay'adaha xeer dejinta Parliament Support Project oo kulmiya dhammaan golayaasha xeer dejinta dalka u kuurgelida baahiyaha golayaasha iyo qorsheynta xal u helidooda iyo dib u eegista is-afgaradka ee golayaasha xeer dejinta afhayeenadu waxay mahadnaq iyo bogaadin u jeediyeen golaha xeer dejinta ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed soo dhaweynta diiran iyo martigelinta qiimaha badan ee muddada uu kulanku ka socday xarunta ku meel gaarka ee Koonfur Galbeed ee Baydhabo intii uu socday kulankaas ka qaybgalayaasha kulanka afraad ee afhayeenada waxay fursad u heleen kormeeridda xarumaha hay'adda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed waxaana farxad weyn inoo ah horumarka muuqda ee muddada kooban ugu hirgalay dowlad goboleedka iyo shacabka Koonfur Galbeed kulankan afraad waxaa diiradda lagu saaray baahida guud iyo baahiyaha gaar ahaaneed ee golayaasha xeer dejinta waxaana lagu diyaariyay nuqul qoraal kaasoo koobaya baahida golo walba uu leeyahay iyadoo la isla gartay in si wada jir ah xal loogu raadiyo caqabadahaas hortabinna la siinayo hadba sida loo kala baahi badan yahay gaar ahaan golayaasha dhowaan dhismay sida Hirshabeelle iyo Galmudug waxaa kulanka lagu guddoonsaday in kulan wada jir ah lala yeeshay hay'adaha deeq-bixiyaasha iyo hay'adaha sida tooska ula shaqeeya golayaasha xeer dejinta horaanta sanadka 2018 waxaa kulanka lagu guddoonsaday in dib u eegis iyo toosin lagu sameeyo mashruuca tayo dhisidda golayaasha si loo waafajiyo baahiyaha hortabinta u leh golayaasha xeer dejinta waxaa lagu heshiiyey in lagu dhiirigeliyo garabna lagu siiyo hay'adaha fulinta heer federaal iyo heer dowlad goboleedba dardargelinta iyo dhammaystirka arrimaha ka dhiman federaaleynta dalka waxaa kulankan lagu guddoonsaday xoojinta xiriirka guddiyada golayaasha ee isku shaqada ah sare u qaadidda tababarada wadajirka ah ee xubnaha iyo shaqaalaha golayaasha
aqoon isweydaarsiga iyo xog isweydaarsi ku dhisan in golo walba garab ku siiyo golaha uu ka hor dhismay ama uu ka khibrad iyo tayo roon yahay waxaa la isku afgartay in la dhiirigeliyo adeegsiga tiknoolajiyada casriga ah ee isgaarsiinta video conferencing technology si xiriirka aqoon isweydaarsiga iyo xog isweydaarsigu u noqdo mid joogto ah waxaa la isla qaatay in golo walba wada tashi isugu noqdo si looga fiirsado kelmadda sharci dejinta iyadoo kulankan lagu soo jeediyay inay ku habboon tahay in la dhiirigelinta iyo adeegsiga kelmadda xeer dejinta si waafaqsan qodobka lixaad ee heshiiska is-afgaradka golaha afhayeenada kulanka shanaad wuxuu ka dhici doonaa caasimadda jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya Muqdisho April 2018 gudoomiyaasha baarlamaanada ka jira dalka Puntland, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo ku-xigeenadooda ayaa sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin gabagabadii shirka ayaa waxaa soo hiray gudoomiyaha golaha shacabka dowladda federaalka Soomaaliya Professor Maxamed Sheekh Usmaan Jawaari kulankeena afaraad oo noo socday 26 ilaa 29 December ahaa kulankii afaraad ee golayaasha xeer dejinta Soomaaliya waa inuu xiran yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh shirkan ayaa noqonaya shirkii afaraad oo ay yeeshaan gudoomiyaasha baarlamaanada ka jira dalka iyo kan dowladda federaalka Soomaaliya Axmed Ibraahim Buule Bulsho TV Baydhabo